taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmada Axmed Dhagax mar waxaan doonayaa taadaan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kulmiye hadaado idinkoona waxaan jecelahay halkan inaan kelmad ka dhiibto haddaan nahay mas'uuliyiintii degmada Axmed Dhagax waxaan uga hagar baxnay xisbigan iyo hawshiisaba inaan maanta oo aan halkan taaganahay iyo maalinta codayntaba aynu diyaar ugu noqonay inaan codkeena u bixino mujaahidkeeni weynaa Muuse Biixi Cabdi soo diyaar ma nihin maanta waa maalin taariikhiya waxa weeye marka aad eegto sida sharafta leh ee u soo baxdeen dadweynaha halkan isugu yimid ee nooc walba leh aad baa u mahadsantiin ee xusbiga kulmiye daacadda u ah ee dhiigooda u huray Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Muuse Biixi dalkan wax weyn buu ku leeyay Soomaalidu waxay tidhaahdaa ninna dhuunuu ku dhex joogaa ninna dhaqashuu kugu dhabar jabay dhiiggiisu u shubay waxa weeye taariikhdu inta maanta mujaahid joogta iyo inta maanta wax kala garanaysa dalkani siduu ahaa iyo waddaduu soo maray iyo halkii uu maanta ka soo noqday waa mid la isla og yahay walaalayaal dadweynaha halkan maanta isugu yimid soo farteena Muuse Biixi ugu odayn mayno miyaynu isku diidanay Allahu akbar kulmiyaha afguulaysto waana mahadsan bismillahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dadweynaha xaafadda Axmed Dhagax ee goobteeda iskugu yimid baraawayna salaamayaa marka ugu horeysa marka dambe waxaan salaamayaa madaxda sharafta leh ee loogu timid xaafadda Axmed Dhagax maanta waan salaamayaa maanta ma koobi kartid afran maxaa farxadayda aad iyo aad bay maxay badan tahay waxaan leeyahay degmada Axmed Dhagax sida uu soo baxday maanta maalinta codka u soo baxa waxa weeyaan hadal badan haanalama bixiso waxa weeyaan xaafadda Axmed Dhagax waa kulmiye waa xaafadii kulmiye soo saartay weeyaan maanta waxay noo sharaxan gudoomiyaha xisbiga kulmiye musharaxa Muuse Biixi Cabdi ma doorateen ma siiseen waxaan leeyahay dalka xukuumadda waxa u qaban kara dariiqaha siyaasiga Muuse waa siyaasi weeyaan waa mushaahid weeyaan waa nin waddankan ku xaq waa nin gobolka hawda waxaan leeyahay waxaan farayaa Axmed Dhagax waxaan farayaa maalintii waa garanaysaa aynu codka codeynay Axmed Maxamed Maxamuud Siiyaayo sida ugu shubnay maanta Muuse ugu shubayaan been la idin sheegin Axmed Dhagax waa kulmiye yaa been la idin sheegin limaan idin runtaa waan arkayaa saa ugu soo baxdeen xisbiga idin oran maayo miyaa u codaynaysan Muuse Biixi waxaan ka arkayaa calaamadda asidataan mashxaradiina iyo dabaaldegiina ayaan ka arkayaa haddaad ku suntantiin astaantii xisbiga waxay ka dhigan tahay idinkoo codeeyay aad iyo aad waxaan uga mahadcelinayaa dadweynaha Axmed Dhagax iyo koobiyo soddonka Meey ee isugu yimid fagaarahan ballaaran ee stadium Hargeysa aad iyo aad baad mahadsantihiin run ahaantii xaafadda Axmed Dhagax waa xaafad ku suntan dagaalkii halganka qanaad halkii waddanka loo soo maray ee 1988kii lama odhan karo xaafadda Axmed Dhagax oo halgamayaala oo mujaahidiina mid yar iyo mid weyn oo ku caanbaxay ayaa xisbi kale u horolayn doona ama u tegi doona isagoo xisbigii mujaahidiintu yahay kulmiye ma aaminsanin innagu inaa meel kale odaynaysaan waxaanu aaminsannahay inaa mujaahidiintiin waana idinka muuqataa run ahaantii xisbiga kulmiye waa xisbi ay isugu yimaadeen haldoorkii Somaliland inta musharax ee madaxweyne doon ee kulmiye ku jirta ugu yaraan 3 baa imika jooga waa Kijaande waa Cabdicasiis waa raggii doonaya madaxweynenimada guusha doorashada natiijada guusha doorashada
oo iman doonta kulmiye barnaamijka u degsan xisbiga kulmiye waxaa u degsan in uu ka sii amba qaado waxqabadka xukuumadda isagoo ka sii amba qaadaya waxaa u degsan waxqabad iyo horumar degdeg ah inuu markaa baahiyaadka muhiimka ah inuu ku tallaabsado ugu horrayn bisha ugu horraysa ee sanadka 2018 waxaa u degsan waa sharaxaad qodob ka mid ah barnaamijka aan ka soo qaatay weeyaan waxaa u degsan inuu wax ka qabto oo gacanta la saaro biyola'aanta ka dhacda dalka gudihiisa siiba raacatada iyo miyiga deegaamada in wax laga qabto iga oohisay baan idiin sheegaya mid xalay iga oohisay keliya xalay waxaan joogay cabbaaye aad baa loo dabaaldegayey islaan weyn oo aan ku qiyaasay inay tahay 80 jir ayaa la sheekaystay oo ooyaysay waxaan idhi maxaa kugu dhacay wallaahi inaana been sheegay wallaahi waanigaa dhaartay wallaahi waxay igu tidhi muuse biixi mabaa filayn inay cidila tartamayso waxay tidhi annagoo qaxayno oo carruurtaabay tidhi hablo ag joogay oo waaweyn ayay dhinacyada ku haysay waxay tidhi carruurtii oo dhinacyada ku hayo oon ordayo oo dayuuradna daba socoto oo nala rushaynayo ayuu muuse biixi oo ciidays wataa meel nooga soo baxay dayuuraddii in yar dabadeed ayaa aanu aragnay iyadoo qiiqayso dhulka ku soo dhacday ma ninkaasaa cidila tartamaysaa bay tidhi way ooyaysa wallaahi waxaan leeyahay halkii xasan shaar uu yidhi waar berrito hadday qadhaadhaato dad qaarkood way dhoofayaan oo waad ogtiin war maanta ninka idinla jooga ee idinla dhaca ee idinla qaxaya ee idinla nool ee idin og ee muuse biixiya codkiina ku hubsada qodobka iigu dambeeya waxa weeye kubaddaa waxaan u soo qaatay reer axmed agax isboortiga somalilan way ugu horreeyaan allahu akbar waa in salaamayaa madaxda shabaqta leh ee kulmiye ka socota marka la qaadqaadayo madaxda oo dhan waa salaamaya shacabka halkaa taagan waa salaamaya sida sharafta leh noo maamusay ee noogu soo dhaweyna halkan waxaan sheegayaa maanta muuse biixi anigu esanan baan ahaa afarta koone hargeysa meelaanu ka soo dagaalamin ma jirto meelaanu ku dhaawacmin ma jirto ba ninka markii uu xidhay duur iyo xirsi gabiilay caanaha igu keenaya waa muuse biixi ma doonaya maanta inaanu nin dibadda ka yimid oo waxana wuxuu yaanay jirin oo hargeysa markay burbursanayd aan waru haynina maanta hargeysa oo dhisan u soo arkay ma doona maanta codka inaanu siino muuse biixi waa nin geesiya waxaan doonaya maanta muuse biixi inaanu siino waa ninka keliya ee xadkeena cagaha ku istaagaya odayaasheeda iyo dumarkeeda dhammaantiin 13 May Axmed Dhagax labada degmo ee aan ka soo jeedo aad iyo aad baan idin salaamayaa kulmiye sabaniin adkeena soo siimayno insha Allah guushalayna waa qaadi doonaa wanaagsan oo degmada Axmed Dhagaxa runtii waa goobtii stadiumka ugu weyn ee caasimadda Hargeysa waxaa inoo sharafa waxaa soo shacbiya waxaa soo taageera waxaa soo ummada waxaa soo khalqiya oo taageersan xisbiga kulmiye oo ka talinaya guusha iyo himilada mustaqbalka mujaahid muuse biixi cabdi waxa ay doonayaan Somaliland inay baabacdo ninka maanta kula waxbaan tarayaa isagoo dawladda ku jira oo madaxweynaha gacanyarihiisa ayuu ka cararay oo uu yidhi waan daloolinayaa doonida Somaliland markaasaa wax la doortaa 12 sannadood buu Cabdiraxmaan Cali ahaa ayuu golaha wakiilada ahaa golihii wakiilada ee Somaliland ee hore ee aan ka mid ahaa shuruucdii uu baasgareeyey ayaa 3 laab ka badan shuruucda uu baasgareeyey imika walaalayaal waxaasi ha ku hodmina waxaasi walaalayaal waxaa ha ku hodmina ha dhegaysanina munaafaqa ha dhegaysanina siyaasiga dalka dhacay ee tuuga ee hantidii ummadda qaatay ee haddana waddani soo dhex fadhiistay iyo kaanbaday ee waddani soo dhex fadhiistay midna ha aaminina
يا فرح بدن وها وحدن باكويتي مركا هرتا دد جورجورا oo kolba dhinac u yaaca ma tiidin xisbigiinaasaa tihiin nin kursi doona oo maalinba meel u cararaya raaci mayno soo maaha kulmiyahaasaynu ahaanaynaa soo maaha waa salaamatii